dhacdo 1400 sano ka hor dhacday oo baalalka taariikhdu xuseen. Qiyaastii 1400 sano ka hor, dunida waxaa ka jiray laba quwadood oo aan cid kale la tartami karin. Mid waxay ahayd dowladdii Roomaanka Bari ee loo yaqaanay Bisantiyiinta, halka tan kale ay ahayd boqortooyadii Faris ee loo yaqaanay Bershiya. Labadan quwadood waxay ahaayeen kuwa ugu awooda badan dunida xilligaas. Boqortooyada Faris waxay ahaayeen dabcaabudayaal mushrikiin ah, halka Roomaanku ay ahaayeen Masiixiyiin ka tirsan ahlu kitaabka. Bilowgii qalalaasaha, maalin maalmaha ka mid ah, gudaha boqortooyadii Roomaanka waxaa ka dhacay inqilaab. Boqorkii markaas talada hayay oo lagu magacaabi jiray Maurice waxaa xilka ka tuuray nin askari ah oo la oran jiray Focus. Fursaddaas ayuu ka faa'iidaystay boqorkii Faris, kaas oo markiiba ku dhawaaqay dagaal weyn oo ka dhan ah Roomaanka. Markii inqilaabku dhacay, boqortooyadii Roomaanka ee hore u maamuli jirtay dhul ballaaran oo ay ku jireen qaybo badan oo Yurub ah, dhulka maanta loo yaqaan Turki, waagaana loo yaqaanay Aasiyada Yar, Syria, Ciraaq, Masar iyo in badan oo waqooyiga Afrika ah, waxay gashay fowdo iyo burbur. Maamulkii ayaa kala daatay, ciidamadiina way yaaceen. Soo bixitaankii Hiraql, xilligaas taliyihii ciidanka Roomaanka ee ku sugnaa waqooyiga Afrika, wuxuu ahaa nin awood badan. Wiilkiisa oo la oran jiray Hiraql ayuu ku taageeray ciidan si uu u badbaadiyo boqortooyada. Hiraql wuxuu ku dhaqaaqay howlgal halis ah. Wuxuu u safray magaalada Constantinople, caasimaddii Roomaanka. Markii uu halkaas yimi, waxa uu la dagaalamay kuwii inqilaabka sameeyey. Wuxuu dilay ninkii talada qabsaday ee Focus. Wuxuu dib u soo celiyey boqortooyadii Roomaanka. Laakiin dhibaatadu halkaas kuma dhammaan. Guulihii Faris, boqorkii Faris dagaalka ma joojin. Ciidamadiisu waxay si degdeg ah u qabsadeen dhul badan oo Roomaanku lahaa, sida dhulkii Shaam, maanta loo yaqaano Syria, Falastiin, Masar. Waxay xitaa gaadheen Baytulmaqdis, Qudus, halkaas oo ay gubeen meelo muqadas ah oo Kiristaanku qadariyaan. Waxay sidoo kale qaateen isku talaabtii quduuska ahayd oo Kiristaanku qiimeyn jireen. Ciidamadii Faris waxay u sii dhowaadeen ilaa darbiyada Constantinople, caasimaddii Roomaanka. Go'aankii adkaa, Hiraql wuxuu galay xaalad aad u adag. Wuxuu ku fekeray laba doorasho: inuu ka cararo oo boqortooyada ka tago, ama inuu isku dayo dagaal cusub iyo isdifaac. Markaas ayaa wadaadkii ugu weynaa ee kaniisadda u sheegay, baxsasho ma jirto ee nabad raadso. Sidaas ayuu Hiraql safiir ugu diray boqorkii Faris, isagoo codsanaya heshiis nabadeed. Shuruudihii adkaa. Boqorkii Faris markii hore wuu quursaday codsigaas. Wuxuu u arkayay in Roomaanku hore u burbureen oo aanay wax awood ah lahayn. Laakiin ugu dambeyntii wuu aqbalay, isaga oo ku xiray shuruudo aad u culus. Roomaanku waa inay bixiyaan 1000 taalent oo dahab ah, 1000 taalent oo lacag silfar ah, 1000 maro xariir ah ama 1000 toob, iyo 1000 hablood gashaantiyood. Shuruudahani waxay ahaayeen kuwo aad u adag, waqtiguna aad buu u koobnaa. Bishaaradii Quraanka. Xilligaas dadku waxay u arkayeen in Roomaanku gebi ahaanba burbureen. Qofna ma saadaalin karin in ay mar kale awood yeeshaan. Laakiin waqtigaas ayaa Quraanka Kariimka ah soo degay, isaga oo sheegay Roomaanku way jabeen, laakiin sanado gudaheed mar kale way guuleysan doonaan. Quraysh oo mushrikiin ahayd waxay taageereen Faris, maadaama labaduba
ay mushrikiin ahaayeen, halka muslimiintu ay taageereen Roomaanka sababta oo ah waxay ahaayeen ahlu kitaab. Soo noqoshadii Roomaanka muddo kadib, Hiraqal wuxuu ka baxay xaaladii liidashada ahayd ee tumashada iyo dulinimada ahayd. Wuxuu dib u dhisay ciidankiisa, wuxuu abaabulay difaac xoog leh, kadibna bilaabay weerar cusub. 3 dagaal oo waaweyn ayuu ku qaaday ciidamadii Faris. Ugu dambeyntii wuxuu gaaray ilaa agagaarka Ninawa oo u dhow caasimadii Faris. Hal mar xitaa ciidamadiisu waxay qabsadeen dabkii ay Farisiyiintu caabudi jireen, taas oo astaan u ahayd jabka Farisiyiinta. Burburkii Faris. Markii xaaladdu ku adkaatay Faris gudaha boqortooyadooda ayaa waxaa ka dhacay inqilaab. Boqorkii la odhan jiray Kisra waxaa xukunka ka tuuray wiilkiisa. Wiilkaasi aabbihii xabsiga ayuu dhigay. Halkaas ayuu ku dhintay aabbihii 5 casho kadib, wuxuuna hortiisa ku dilay 18 walaalihiisa. 4 sano ee xigtay, boqortooyada Faris waxaa isku beddelay 9 boqor. Boqortooyadii weyneyd ee Faris waxay gashay burbur iyo qalalaase. Dhacdadii waraaqda nebiga. Intii ay dhacdooyinkaasi socdeen, Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu warqad u diray boqorkii Faris isagoo ugu yeedhay Islaamka. Boqorkii Faris aad buu u xanaaqay, wuxuuna amar ku siiyey wakiilkiisii Yaman, soo qabta ninka warqadda ii soo qoray. Markii ergadii Yaman ay timi Madiina, Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu u sheegay, Rabbigay ayaa caawa dilay boqorkiinnii. Markii dambe waxaa la xaqiijiyey in boqorkii Faris dhab ahaantii la dilay habeenkaas. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu sidoo kale sheegay in boqortooyada Faris aysan mar dambe si dhab ah u soo kaban doonin. Casharada taariikhda. Dhacdadani waxay muujinaysaa wax aad u yaab badan. Markii dunidu hubtay in Roomaanku dhammaadeen, Qur-aanku wuxuu sheegay in ay mar kale guuleysan doonaan. Waxay ahayd arrin aan bini aadamku saadaalin karin, balse Ilaahay ayaa hore uga warramay.